abaarahan sida weyn u saameeyay dadka iyo dunyada ee ku dhaqan deegaanada dhulka miyiga ah ee galbeedka magaalada Kismaayo ayaa waxa lagu soo waramayaa in xilligan ay bilowdeen in ay dadka u geeriyoodaan oonka iyo haraadka ka jira deegaanadaasi iyo gaajada waxaana lagu soo waramayaa in wiil yar oo 12 jir ah uu u geeriyooday gaajada iyo haraadka ka jira deegaanada dhulka miyiga ah ee fogfog ee u dhaxeeya Biroole iyo Buulaxaaji sida ay inoo xaqiijiyeen dadka deegaanka ciise axmed maxamed ciise borow oo kamid ah dadka ka soo jeeda deegaanada ay abaaruhu saameynta ku yeesheen ayaa VOA uga waramay xaaladda dhabta ah ee ka jira deegaanadaasi biyo la'aan rasmi ah dadka heshay gaadiida loogu dhaaminay biyihii gaadiidkii waa ka soo laabtay roobna wali lama helin laakiin Hoosingow iyo Kismaayo inta u dhaxaysa dadka maanta meesha yeela waxay u baahan yihiin dad islaam ah oo u gurmaday u baahan yihiin waxa kamid ah Kulbiyow ilaa iyo eelboorka Kismaayo inta u dhaxaysa dhinacaana Istanbul Bernasey ilaa iyo Biroole aagani ku jiraan dadka loodii waa ka dhamaatay hadda biyo la'aan fara badanna waa haysaa ceel ma jiro warihii waa dhamaadeen balli laga cabaa male malkadii awal dadka ku naf dhoorsan jireen malkadii biyo male Khadiija Xaaji Yacquub oo kamid ah bulshada rayidka oo toddobaadkan gaartay deegaanada ay abaaruhu sida weyn u saameeyeen ayaa VOA uga warantay waxa ay indhaheeda ku soo aragtay intii ay ku sugnayd deegaanada dhulka miyiga ah ee galbeedka magaalada Kismaayo hadda hal cunug uu ku dhintay dad kale oo garaa waa la sheegayo meesha dhibaato beerka baahi dhulka ku wada haayo wixii wax macnaha wax laga sheekeen kara ma aha marka dawiyada iyo meelaha ceelasha marka taagan tahay oo sida yaaq bashaar oo kale marka taagan tahay haadweyn oo kale marka biyaha meelaha laga dhaaminay ay taagan tahay aadan ooyin baa ku qabanayso xaaladda wadanka ka jirta xaalad caadi ah ma aha abaar laga sheekeen kara ma aha wallahi abaarta qofkii waa arka oo ma dhex taagan ama meesh istaago baa dareemi kara baahiyada iyo dhibaatada wadanka taago wadanka dhibaata taagan baahi baa taagan ummadii xoolihii way ka dhamaatay meel walba oo Soomaali ay joogto abaar baa ku haysato qaasatan Jubbaland dadka jooga abaar baa haysato abaar aan la soo koobi karin oo reer Jubbaland oo qaas ay u too abaar xoog leh baa ka jiro walaal ummadda islaamka iyo beesha caalamka iyo cid walba oo dadka u gurmanayso waxaan ka codsanaynaa dadka in si balaadnimo ah si arxan naxariis ah Khadiija Xaaji Yacquub ayaa sheegtay in xilligan loo baahan yahay in gurmad degdeg ah loo fidiyo oo la badbaadiyo dadka ay xoolahoodu ku leedeen abaaraha dad badanna ay qarka u saaran yihiin inay u geeriyoodaan gaajada iyo haraadka ka jira deegaanada Buulaxaaji Kaamjiroon Cabdalla Biroole ilaa deegaanka Yaqraar oo lagu soo waramayo in dadku ay daadsan yihiin hareeraha wadooyinka xooluhuna ay deegaanadaasi ku baaba'een xoolaha dadkii xoolihii hadda waa la iskala soo tagay dadkii ayma u baahan xilliga maanta aan joogno saan dadku ceemin karnaa taagan inkastoo culimada u diin iyo dad ay gurmadeen wixii wax hadda ummadda islaamka ah meel walba ay joogan inay gurmadaan waa muhiim dadka wayaanta jooga dad dhibaataysan tabaalaysan xoololey aha xoolo ku tiirsanaa waa dareemi kartaa qof xoolo ku tiirsan oo xoolihii intay ka dhamaadeen lafihiisii maanta ceeyma u raadinaya taagan maanta la faceeyma raadin baa taagan maahay xoolo warkeeda aadan uma jiro waxaan ilaahay ka baryeena subhanahu wa ta'ala ummadda inuu ilaahay roob u keeno waxa ceemin kara maanta ummadda Allah subhanahu wa ta'ala ceemin karo ceematii Allah waaye walaal marka dhibaatadaas taagan Shariif Ibrahim Goobweyn oo kamid ah mudanayaashii hore ee baarlamaanka Jubbaland ayaa dhankiisa ku biiriyay qeyladaanta in gurmad degdeg ah la gaaro dadka ay abaartu saameysay dadka hadda qarka u saaran dhimasho marmar bini'aadan hadii taageerta sheekada xoolo lagama sheekeyn karo marka dadkii aad ay u baaba'ayaan oo wax ugu badan oo online on way hadda meel bini'aadan uu dhintay abaar uu dhintay waxa ka jirta deegaanka galbeed gaar ahaan ilaa inta u dhaxaysa Kaamjiroon ilaa iyo Biroole inta u dhaxaysa yaa hadda qof bini'aadan waxa uu abaar u dhintay ka jira naloo soo sheegaya qof waxa waaye wiil adiga ilaa iyo 12 jir ah intay macnaheedu roob daal lahay guureen roobkiina ay gaari waayeen oo yarkii wuxuu gaaji iyo biyo la'aan u dhintay dadkii meesha laga soo qaaday xoolo warkay iska daayiga la soo badbaadiyay maalmihii dambe waxaa si weyn u sii xoogaysay abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ah inkastoo deegaanada qaar ay roob ka da'een haddana wali waxaa muuqanaya dhibaatada ay geystay abaarta ee ku dhufatay meelo badan oo Jubbaland ka mid ah waxaana sii kordhaya qeyladaanta ka imaanaysa dadka reer guuraaga ah oo badankoodu ay xooluhu uga leedeen abaaraha ka jira deegaanadooda Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo.